Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa channelkii aad uga barateen qisooyin jacayl oo taxane ah iyo mowduucyo kale oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee nolosha oo aad runtii ka kororsan karto khibrado iyo waayo-aragnimo ku aadan nolosha ama kor u qaadi kara heerka garaadkaada. Haddaba si aad ula socoto dhammaan qaybaha aan kor ku soo xusnay, ku xirnaaw oo rukumo channelka Ahmed Diiriye Afrax. haddaba maanta waxaan halkan idinku soo gudbinayaa mowduuc aad u xiiso badan, muhiimna u ah nolosha mustaqbalka wiil iyo gabarba. Mowduucan ah waa tee nooca gabadha ay ragga oo idil u hanqaltaagayaan mustaqbalka. Runtii waa mowduuc aad u xiiso badan oo aad ka kororsan karto waayo-aragnimo ku aadan dooqa iyo rabitaanka ay ka siman yihiin ragga oo idil. Inkasta oo aysan raggu isku wada dooq ahayn marka ay timaado xulashada gayaankooda mustaqbalka, marka laga hadlayo dhanka quruxda, dabeecadda iyo dhaqanka intaba. Haddana halka qodob ay ragga oo dhan isku wada raacsan yihiin ayaa ah in gabadhu tahay mid asturan, asluub iyo xishood leh, akhlaaq wanaagsanna ku labisan. Inkasta oo ay jiri karaan rag aad u tiro yar oo faraku-tiris ah oo iyagu ka hela amaba jecel gabdhaha fashionka ah oo alaaba la jaanqaado casriga kolkaa jira, haddana aad bay u tiro yar yihiin kolka la barbar dhiga tirada guud ee ragga. Waxaa cajiib ah kolka aad si hoose ula sheekaysato ama aad u waraysato ragga adigoo doonaya in aad wax badan ka ogaato damacooda mustaqbalka guurka iyo dooqooda, ay dhammaantood aad u jecel yihiin ama u xiisaynayaan gabdhaha low profile-ka ah. Macnaha low profile-ka ah waxaan ula jeedaa gabdhaha aanan inta badan isku muujinin goobaha ay bulshadu isugu timaado, sida goobaha shaqada, goobaha waxbarashada iyo xafladaha kala duwan, iyo weliba aanan inta badan quruxdooda ku soo bandhigin baraha bulshada. Waxaa kaloo cajiib ah oo la yaab leh in raggu badankoodu marka ay gabari aad u qurux badan oo kala kacsan ama shidan ay sawirkeeda ku soo bandhigta baraha bulshada iyada oo ku labisan dhar muujinaya jirkeeda, ay u soo qoraan kommentiyo ama faallooyin ammaan ah sida waaw, maasha allah, waad shidan tahay, quruxdu waa u dhalasho, indha daraandar, qalbiga baadna ruxday, iyo erayo kale oo kasii cajiibsan. Kolka aad si hoose u waraysato waxaad ogaanaysaa inaysan jeclayn inay nolol la qaybsadaan gabadha nooca ah ama gabdhaha nooca ah ee quruxdooda la wadaaga bulshada oo dhan. Marka su-aasha isweydiinta leh waxay tahay, ma ragga ayaa laba wajiilayaal ah mise dumarka ayaanan weli fahmin halka ay ciladu ka jirto? Haddii aan u soo laabto arrintan ah maxaa sababi kara in wiil gabar commenti ku ammaanaya haddana aanan rabin inuu nolol la qaybsado mustaqbalka? Jawaabtu way iska caddahay oo gabdhuhuba 100% waa ay ka dharagsan yihiin in wiilasha aanay jeclayn gabdhaha badeecadooda bannaanka soo dhigta si degdeg ah loogu iibsado. Haddaba haddii aan u soo noqdo nuxurka qormadan ku aadan waa tee nooca gabadha ay ragga oo dhami u hanqaltaagayaan, haddii aan dhowr qodob ku soo kooba aniga oo ku salaynaya cilmi baaris ama daraasaad ku salaysan rabitaanka ragga badankoodu, wiil weliba waxa uu doonayaa inuu nolosha mustaqbalka la wadaago gabadha jirkeeda asturata, asluub leh oo aan af dheerayn. Micnaha aan war badnayn ayaan ula jeedaa oo aan af dheerayn. Gabar aan quruxdeeda iyo jirkeeda aanan marnaba ku soo bandhigin baraha bulshada. Raggu waxay aad u jecel yihiin gabar ahludiin ah oo aan socod badnayn kuna badnayn xafladaha marka laga reebo kuwa quseeya nolosheeda iyo tan qoyskeeda. Raggu waxyaabaha ay ku doortaan gabdhaha mustaqbalka nolosha ay la wadaagayaan waxaa ka mid ah gabar aan afka la gelin wiilasha oo ilaashata sharafteeda. Waxay kale jecel yihiin raggu gabar aan marnaba ka ogolaanin wiilasha kulamada aan munaasabka ahayn iyo anshax darrada. Inta kaloo raggu aad u jecel yihiin
gabar ku dadaasha horumarkeeda nolosha dhan waxbarasho maadi iyo diini intaba. gabar aanan waxay aad u jecel yihiin ragga gabar aanan u dabcin ama u calool jileecin amaba calool jileec aan u muujinin ereyada dabacsan ee ragga qaarkii oo dana kale ku hoos wata. dhammaan qodobadan aan korka ugu soo xusay waxay ka mid yihiin tilmaamaha ay dhammaan raggu jecel yihiin inay ku xushaan gabadha ay mustaqbalka la wadaagayaan nolosha. haddaba gabdhaha waxaa la gudboon in aysan qaab darro wax ku baadigoobin oo ay qaab qurux badan ku sugaan carafkooda si uu alle raalli ka yahay. raggana waxaa la gudboon in aysan gabdhaha walaalahood ah aysan ka sii tuurin qar dheer oo halis ku ah noloshooda, maadaama ay gabdhihii u sii horseedayaan in sidii aflaamta oo kale shaashadda laga soo wada muuqdo. halkan waxaan inoogu eg mawduucii ku saabsanaa waa tee nooca gabadha ay ragga oo dhan u wada hanqal taagayaan. haddii aad ku cusub tahay channelkan Ahmed Diiriye Afrax, fadlan ha iloobin in aad like, share and subscribe galayso. waa Ahmed Diiriye Afrax oo idin rajaynaya nolol farxad leh meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.